kulanti waxaana wanaagsan khiyaarta naga daawataa janaalada Eleyska xogaha iyo soo kala tusmada filmada si wada jir ah labadan janaal hadaan kale waxaan kugu soo gudbinaa wararka ugu dambeeyay maanta la qoraarmaha koonfurta iyo soo kala Bollywoodka ee la xiriira xanta jilaayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada teatrada ku goosgoosada heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kalaasna alaab xiiso leeyihiin oo la wadaagi kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kala bartkale Eleyska xogaha meel walba joogtaan hawada waxaan idin kalenahay maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkeena waxaas ku bilaaw doona waxaas rasmi lagu dhawaaqay filimka xiga ee Talaafati Vijay inuu la shaqeyn doono directorka Venkat Prabhu Talaafati Vijay filimka 68 ayaa wuxuu yahay filim markaan xiis leh iyagoo dadka u soo daawashada filmadan ee markaan ka dhowr sugayeen soo kulno xal sheegay ugu dambeyn inuu la midoobay directorka Venkat Prabhu kaasoo filimkiisa xiga ugu dambeynna sugitaanka wuxuu noqday mid gabagaba iyadoo sidoo kalena si official ah lagu dhawaaqay filimka 68 ee Talaafati Vijay taas oo nafsi ahaantiisa uu ku dhawaaqay in Vijay kadib filimka Leo in uu mashruuciisa xigo noqon doono mid uu kula midoobay Venkat Prabhu filimkan ayaa wuxuu yahay mid ay soo saartay shabakada AGS Entertainment qolada muusikana waa Yufan Shankar Raja qolada filimka ee castingka crewgana waxa la sheegay in dhawaan si rasmi ah lagu dhawaaqi doono qolada filimka markay ay arintaasi u soo diyaar garoobaan waxaan Talaafati Vijay uu yahay filimka mid loo sameyn doono miisaan culus kaasoo director-ka noqon doono Venkat Prabhu Arjana Kalbati ayaa wuxuu leeyahay qaybta soo saarista filimka kadib filimka Bigil ayaa waxay noqonaysaa markii labaad ee Vijay oo la shaqeeyo shabakada AGS Entertainment Talaafati 68 ayaa wuxuu noqon doonaa filim madadaalo dhameystiran kaas oo daawadayaasha ay ka wada heli doonaan waxaan sidoo kale noqon doonaa filim farsamada ugu sareysa loo soo gudbiyo sidoo kalena qiimooyin loo sameeyo ee xagga soo saarista dhinaca kale Jana Abraham ayaa la shaqeyn doona xidiga Rafi Teja filimkiisa xiga ee Pan Hindian kaas oo lagu magacaabo filimkaasi Tiger Nageswara Roy Rafi Teja filimkiisa xiga ee Pan Hindian ee lagu magacaabo Tiger Nageswara Roy ayaa wuxuu ka mid yahay filimada ugu xiisaha badan ee la sugaaya kadib inuu filimkaasi ka dhax abuuro hadalhayn dadka filmo soo daawasho tago ee muuqaalkiisa kooban wuxuu yahay mid la soo fasaxi doono May 24 taas oo lagu soo fasaxi doono dhammaan luqadooyinka koonfurta iyo soo kala qaybta kale Hindiya waxaana la sheegay in abdeedka ugu dambeeyay Jana Abraham uu ku soo biiray filimkaasi asagoo ku codeyn doono muuqaalka kooban ee qaybta Hindiga ama qaybta af Hindiga lagu daawan doono filimka Tiger Nageswara Jana Abraham filimka ma jiri doona saate codkiisa ayuu lagu duubi doonaa film soo saarayaasha ay Twitterka waxay ku shaaciyeen inuu ku dhawaaqeen in Jana Abraham uu qayb ka yahay codeynta Hindiga qaybta Hindiga ee muuqaalka kooban filimka Tiger Nageswara Roy waxaana fiidiyogaasi ee Jana Abraham uu ku duubayo codka ee qaybta muuqaalka koobanna la soo dhigay xidiga reer Bollywood ayaa sidoo kale wuxuu ku faraxsan yahay inuu qayb ka ahaado muuqaalka kooban ayaa wuxuu ku soo bixin doonaa ilaa 5 luqadood kuwaas oo Kartik isoo kale Shifa Rajkumar iyo Dulkar Salman ee iyagana codadkooda ay ku duubi doonaan qaybaha Tamilka ee Canada iyo Malayalam luqad ahaan waxaana sidoo kale weli aan lagu dhawaaqin qaybta kale ee luqadda Teluguga ee muuqaal kooban lagu duublay waxaana xiisla in Chiranjeev la sheegay inuu codkiisa uu qaybta muuqaal kooban ee Teluguga uu ku duubi doono markaan la wadaagno filimkan qaybtiisa Hindiga ee Tiger Nageswara Roy ayaa wuxuu soo qoray xidiga Jana Abraham markaan aad u xiiseynay in uu qayb yar uu ka ahaado mashruuca waalida ah ee Tiger Nageswara Roy wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan inuu qayb ka ahaado filimkan wuxuu ku saabsan yahay taariikhda ninka lagu magacaabo Tiger Nageswara Roy kaas oo soo kala kamid ah tuugada Hindiga ugu caansanaa xilliga 1970kii Nageswara Roy ayaa wuxuu yahay mid booliska ka soo baxsaday xilli uu ku sugnaa jeel ku yaala Chennai 1970kii taas oo markaas lagu yeeray magaca Tiger waxaana sidoo kale filimkaasi qayb ka marka laga soo tago Mas Maharaja filimkaas ayaa soo kale waxa qayb ka ah Nubur Sanon Gayatri Bardwaj iyo soo kale Anubam Khair kuwaas door muhiim ah filimkaasi ku leh filimkan ayaa soo kale wuxuu mid xiiso leh iyadoo lagu wado in la daawado Dussehra October 20keeda filimkan ayaa soo kale waxa isku dhici doona filimka Talaafati Vijay ee Leo kuwaas oo iska agdhow waaga daawada kalena waxaan fiiri doonaa xidiga Junior NTR ayaa waxa uu mahad celiyay taageerayaashiisa kadib inay u soo hambalyeeyeen dhalashadiisa 40aad soo kale in soo dhaweeyeen filimkiisa cusub ee magaca loo bixiyay
xidig ugu caansan qaybta Tollywoodka ee Junior NTR ayaa wuxuu noqday mid shalay sabtiya u gashay 40 sano, waxaana uu sheegay in taageerayaashiisa ay ahaayeen kuwa xilli walba garab taagnaayeen sidoo kale ay yihiin tiirarka caawintiisa. wuxuu u mahadceliyay taageerayaashiisa dhalashadiisa inay ugu soo hambalyeeyeen. sidoo kale xidigan ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay in muddadii sanadaha uu ku jiray inay ahayd mid uu taageerayaashiisa ahaayeen kuwa asiga alaba taageer u ahaayeen, sidoo kalena ay ahaayeen marka loo fiiriyo tiir u taagnaa in asiga ay caawiyaan. wuxuuna sheegay in door walba uu kasoo muuqdo iyo sidoo kale sheeko walba uu qayb ka ahaaday inay ahaayeen sababa taageerayaashiisa oo ahaa sida uu sheegay xidigan. wuxuu sheegay in nafsad ahaanta markaan ay dareemayso inaad u mahadceliyo ayuu sheegay qof walba oo taageerayaasheeda ka mid ah sida ay ugu helaan bandhigyadeeda iyo sidoo kale sida ay ugu daacad yihiin ayuu sheegay in xilli walba ay ii dul qaataan ayuu sheegay. RRR xidig kasoo muuqday Junior ayaa wuxuu sidoo kale ugu mahadceliyay in magaca filimkaasi loo bixiyay filimkiisa xigay ee Defara in ay soo dhaweeyeen. markaan fiirin dhalashadiisa xidiga Junior NTR sidoo kale filimkiisa soddonaad waxaa loo bixiyay magaca Defara, taas oo Cortala Shifa oo directorkiya, waxaana kala soo muuqan doona Janvi Kapoor iyo sidoo kale xidiga kale ee Saif Ali Khan. wuxuuna Junior sheegay inuu aad markaan ugu faraxsan yahay qof walba kuwaas sida uu soo dhaweeyeen magaca loo bixiyay filimkiisa Defara, taas uu sheegay taas uu raaciyay in ay maalintiisa ay qurxiyeen. waaga daawad ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filimka reer Hollywood ee tiyaatarada saaran. filimkan ayaa waxaa la isku raacay inuu noqon doono filim hida. filimka taxanaha ee Fast X ayaa wuxuu yahay mid ku dhow inuu hid oo noqdo, taas oo maalintii sabtida filimkaas uu korkac sameeyay wuxuuna leeyahay 17 karoor. filimkan korkac uu sameeyay ayaa waxay ka dhigan tahay inuu 20% uu korkac sameeyay maalintii sabtida marka la barbar dhigo maalintii koowaad ee Jimcada, taas oo filimkaasi sidoo kale wuxuu korkac ka sameeyay qaybaha Nizaam iyo Andhra ee qaybta koonfurta. filimkan markaan weerartiisa guud waxay maraysaa 43 karoor. filimkan waxaa sheegay in isbuuciisa ka dhiman oo kor u dhaafi doono ilaa 60 karoor, taas oo sidoo kale uu garaaci doono taxaniis kale ee filimka Fast and Furious 7 kaas oo 46 karoor isbuuciisa koowaad ama 4 maalin ku keenay, taas oo sidoo kale filimkan uu 3 maalin uu ku dhaafay. filimkan ayaa isniintiisa muhiim u ah filimkan in uu wadada guusha xagta saari doono iyo in kaleba, taas oo la ogaan doono. filimkan ayaa markaa waxaa la eegi doonaa Khamiista tiyaatarada kor wuxuu leeyahay 12.50 karoor, Jimcada wuxuu leeyahay 13.75 karoor, sharaxada filimka wuxuu leeyahay 17 karoor nadiif ah. filimka sidoo guud waa 43.25 karoor. inta aynu kusoo koobnaa daawada muuqaalada warbixinada maanta aan ku qaadaa dhignay wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray arrimaha koonfurta ee Bollywoodka, kuwaas oo aslan waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay oo la wadaagi karteen daawadayaashiina ku taxan barta tusmada filimada iyo soo kale barta kale ee la isku xogaa. dad warbixinadan ka heshaanay alaba waxaan ka codsanahay inaad like noo saartaan sidoo kale asxaabtiina la wadaagtaan abdeeda kan ka xisaab badan soo koraan alaba shaqadeena in aan la soo wadaagno. kan kiisa xigana waxaan hawadeedan ka leenahay maalinta hay'adani wacnaato.